Opulence Global. Booyah Beats made this. Purchase your tracks today. labaatan sano iska daa 10 sano ka hor 5 sano ka hor fursadina ma jirto waa maya sooma waa chance ilaahayna siiyay wax kasta oo yimaada ilaahay xalkiisu keena waxaad saran kartaa waxa weeyaan caqabado badan oo jirta laga bixi lahaa marka Opulence Global aan ku soo noqdo ujeedkay wuxuu suurta galiyay in adoo gurigaaga jooga 200 wadan aad macaamiil ku yeelan kartid alaabada halkooda lagu geyn karo ay ka ganacsan karaan adiga laftigaagu meesha doonto joogaad ka ganacsan kartid suuqyada haddaba laga ganacsan karo oo walaashin raxmina ka sheekayn doonto maxaa kamid ah suuqyada halka idinka muuqda oo kala ah waa isqurxintii yaan isqurxinaynin in rabin inuu isqurxiyo rag iyo dumar badee Sooma caafimaadka isaguna muhiim ah oo xitaa lacag lagu helin caafimaadka xitaa lacag ma goys fashion-kii isaguna ah isqurxintii kale ee ahayd haragadii oo halkan inoo buuxa alaabaduna waa daawan kartaan halkaas ay buuxdaa insha Allah dhowto wala qofkii raba uu kici karaa waa taaban kartaa it's okay maxaa kale tii iyadana daryeelkii korka oo ah shaambadii rag iyo tii dumarkii labadiiba isugu jirta waxyaalo badan faa'iido ka raxmaan u deynaya hawshaas ayadaasi fiican idinku qaada dhigaysa iyo tii online-ka intaba uu suurta galiyay industriyadan ama suuqyadan aan ilaahay waxay ku fadhiyaan lacag aad u tiro badan hadda inteena dumar halka joogta hadaan weydiiyo makeup-ka la soo iibsado amaba waxyaalaha yar la marmarsado imsa la idinka siiya hadaad xisaabisaan bishii qarash badan ku baxay Sooma industry beauty wuxuu ku fadhiyaa waxaynan goyn kareynin health-gu ka daran yani wax kasta wuxuu ku fadhiyaa qiimo adigu marka inaanad ka qadin oo xaqaaga ka qaadatid ba la rabaa waxaynu dul istaagaynaa 12 daqiiqo ee loogu sameeyay kamanigan dhaqaale insha Allah ana idin soo urinaysan hore idin ku sheegay dariiqada koobaad waxa loo yaqaan retail profit oo maxaa tahay waxa weeyaan waynu wada naqaanaa dadkeenii hore ganacsiga marka ay sameynayaan waxay sameyn jireen meel bay aadaan alaab ay soo iibsadaan waxa la oran jiray jumlad deena way si tafaariiqeen Sooma tafaariiqda maxaa yaga loo socda faa'iido qofku alaabta qiimo soo siistay hadhowna qiimo ku iibinaya isaga jabnaan baa lagu siiyay qiimihii lagu siiyay qiimaana inuu suuqa ku keenay faa'iidadii baa halka uga soo baxaysa tusaale yar oo kooban baa halka inoo yaala oo isla shay uun ka sheekeynaya hal shay tusaalahaas waxa weeyaan bahasha loo yaqaan Fountain of Life oo halka taala insha Allah dhawaydun arki doontaan walaashay raxmaan oo ka sheekeyn doontaa Fountain of Life waa product aad iyo aad u qiimo badan kamanigeygana ku qaaliya run ahaantii waydun maqli doontaan qiimaha uu nagu joogo annaka oo ku jirna ganacsiga ama xubinka ah iyo qiimuhu ku joogo qofka macmiilka ah shaqaysu ma laha kaba soo qaad aniga waxay ugu joogtaa quruuradu $50 ayay ugu joogtaa kaba soo qaad 70 baan ku iibiyay maxaan faa'iiday $20 Sooma ay halka iga soo baxay haddii aan 5 quruuradood iibiyo 5 macmiil leeyahay oo 5tii 20 ku dhufto maxaa faa'iiday soo xaroonaya aniga $100 Sooma $100 cid iigu haysan ana shaqaystay waa faa'iido moogta sidoo kale haddii aad iibisid oo tiraahdid
sanadkan ama bishan xitaa waxaad ku iibin kartaa alaabtan muddo yaro kooban waxay ku xidhan tahay qofkii dhaqdhaqaaqiisa kaba soo qaad tusaale hoose in isticmaalayna 40 quradooda 40 qof baa wax ka iibsaday wixii aad ka soo saartay 200 xabo ayaad iibisay 200 xabo waxaad ku dhufatay 40kii qof maxaa halkaa kaaga soo baxay $20 ee faa'iidada ahaa $4000 lacagtana waa Canadian saa la socdo horta waxaynu ugu xigo waxa loo yaqaan dariiqa lixaad oo loo yaqaan car club bonuska ama noqonaya dariiqo qofku gaari laguma siinay inta fara lagu dhiibo laakiin waxa lagu oranayaa waxaad u tartami kartaa wax aad ku heli kartid gaarigaaga paymentkiisii ama lacagtiisii aad ku bixin kartid tan toddobaad waxa weeyaan mid loo yaqaan rank advancement ama qofku markuu heer gaaro oo kale loogu sameeynayo in uu meelaha ama dalxiis lagu geeyo ama abaalmarin lagu siiyo ayada laftigeedu waa faa'iido kale tan sideedaad waxa weeyaan mid loo yaqaan options points qofku dhibca u ururayo dhibcaha u ururay ayuu ku helayaa fashion free fashionka halkaas ka buuxa oo idin wada arki doontaan insha Allah qaabka loo helana saan idin sheegay way tira badan tahay laakiin qof markuu ganacsi ku jiro ayuu fahmi karaa wax easy weeyaan dariiqooyin kale tira badan baa jira oo lagu helo ayaga laftigooda oo ku fiican qof markuu meel ku jiro inuu fahmo haddaba gabdho Opulence Global Empire wuxuu sameeyaa beauty healthcare oo skinka waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay 5 cream waa day iyo night cleansing oo cleaningkii Allahumma salli ala Muhammad lipstickii iyo under eye-gii intaaba waxa markii la sameeyay ee dadku isticmaaleen ay feedback ay soo celiyeen waxay ahayd anti aging dadka reer galbeedka inta badan aad bay iskaga ilaaliyaan aad bay isku ilaaliyaan ama exercise ha noqoto ama cuntooyin healthcare ay cunaan ha noqoto marka feedback ka soo noqday kreemadan ayaa kausgareeyay in dawada fountain of life na la soo saaro waayo maado ku jirta oo herbal oo ka samaysan geed Norwegian spruce tree la yiraahdo oo ka baxa dalka Norway ayaa laga sameeyay taasaana kausgareysay in fountain of life la sameeyo haddaba Fairy Flawless brand kan la yiraahdo because waad garan kartaan brandadu way badan yihiin annaga brandkayga waxa la yiraahdaa Fairy Flawless haddaba how many celebrity ba xidha over 300 celebrity ayaa xidha oo red carpet-ka ku mara all over the world taasina waa taas wuxuuna establish garoobay Fairy Flawless 2006 haddaba testimony-ga aan idin sheegay waa kaas Fountain of Life ayaan ka hadli doonaa Fountain of Life horta waa dawo aslan dhibic oo u taala qaab dhibic dawadan sida loo sameeyay iyo sida loo qaato waa waxa ugu horeeyay horta laga hadlo waxa faa'iidada ay leedahayna dib baan uga hadli doonaa saddexdaas su'aalood ma ka jawaabi doonaa dawadan waxa ku jirta dawo la yiraahdo phytonutrient-ku markii hore waxa ay ku jirtay diet-ka qofka ama waxa uu qofku qaadanayo laakiin hadda kuma jirto saadaradeed waxa ay ka samaysan tahay phytonutrient dawadan waxa la yiraahdaa waxa la qaataa halkii dhibic waxa loo qaataa 10 kilogram marka haddaba hadii miisaankaagu yahay 50 kilogram kaba soo qaad waxa aad qaadanaysaa 5 dhibcood dawadan siyaabaha loo qaato waxa kamid in la mariyo skinka ama meesha dilaacsan nabur soo gaaray ama meesha kale infectionku ka jiro waxa kamid oo kale in dawadan hadii loo isticmaalo meel nabur kaaga yaalo inay dedejiso ama ay caawiso in meeshaasi hore ay u bogsato dawadan waxa kale oo loo isticmaalaa finanka ka soo baxa wajiyada loo yaqaan findoobka ama acniga ayaabay baabisa ama yaraysa dawadan inta dibadda loo isticmaalayo inta waxa la yiraahdaa kale waxa soo raacay in hemorrhoid-ka ama mabasiirta sida ay u taqaano ay yarayso infection-ka ku imanaya hadii qofku mabasiir leeyahay oo kale ay dedejiso in ay heal garayso ama ay ka daweyso ama ay ka yarayso caabuqa dawadan waxyaalaha kale ay caafimaadka muhiim u tahay waxa kamid ah inay ka hortagto kansarada qaar sida kansarka
ku dhaca colonka ama large intestine-ka ama xiidmaha weyn sida u taqaanaanba waxa ay ka hortagtaa cawaaqibka macaanka yani cawaaqibka dad kale macaanka ay ka hortagtaa waxay ka hortagtaa in qofka macaanku uu dhaawaco indhihiisa dareen wadayaashiisa iyo kaliyihiisaba waxa ay kordhisaa immune systemka ama habdhiska difaaca jirka waxa kale oo ay dawadani recommended aanay ku ahayn ama aan la siin karin islaanta uurka leh gabadha uurka leh lama siin karo iyo ilmaha 12 jirka yar marka dawadan Fountain of Life waa dawo muhiim ah xataa adiga laftaada marka aad gasho website-kooda waxaad arkaysaa Fountain of Life the only one waa dawada keliyata ee meesha ku jirta aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waxaan idiin sheegayaa aan idinku kordhinayaa sababtii aan kambanigan ugu biiray iyo waqtigaan ka soo biiray iyo wixii aan ka faa'iiday sida runtiya kaasoo ahaa sharawadan dabiiciga ah ee Fountain of Life waxay ahayd waqtigii maasha Allah tabaarakallah lug aan ka kufay 8 sano ka hor ayaa alxamdulillah rabbil caalamiin isoo kacdoontay saynu naqaano af Soomaaligeena 3 bilood iyadoo lugtu ibararsan xanuun garaac farabadan oo ka kici kari waayay ayaa waqtiyada kamida walaasheen rooda ay Facebook-geeda soo dhigtay iyadoo ka hadlaysa inay iyadu isticmaashay aabaheedu isticmaashay hooyadeedu isticmaashay iyadu isticmaashay dad farabadan oo kale ay ka marxaati kacday maadaama ay liidar tahay ayay soo dhigtay screenshot baan ka qaaday marka xiriir lama lahayn rooda 14 sano ka hor ayay isugu kaayay dambeysay alxamdulillah social media no isugu soo dhawaanay anagoo dhinacna family ka asda runtiya alxamdulillah rabbil caalamiin screenshot markan ka qaaday walaalo ila dhashay oo caalamka joogan ku dhibal bahasha ay keena lugtiyaan ka kici waayay si ay wax iigu qabato waxaan moodayay shay tukaan yaala oo laga soo qaadayo saruntii oo la iibinayo maaha ayaa la igu yiri waanu weynay bal halkii aad ka heshay ka doon adigoo dib ugu noqo walaashay baan messengerka u galay walaashay waxay ii xaqiijisay inay tahay shay insha Allah taala de kambanigu iibiyo sida loo heliyana dadka iibiya aad ka heli doonto walaashay raxmo iyaduna joogtay oo Mareykanka iimaneysay igu tiri 2 week kadib way iimanaysaa iyada ka iibso anigu alxamdulillah maalintii 2 week kadib ayay raxmi timi raxmi markay timi waan ka doontay habeenka roob badaayay raxmad farabadan ma sha Allah 3 bilood maan kicin cidna igama dhaarsanayso xaqiiqan idinku la hadlaya inantaa waanu tagay anoo gaari laygu sido marxaati bay ka ahayd oon ka dagi kareynin gaariga oo la caawinayo xamaamka qolkayga igu yaala maan gali kari jirin ilaa 2 qof gacmaha ay qabtaan habeen oo dhan xaajiga ay siday ilaahay ka jazaaysiyo maalin oo dhan carruurtayda ay waday alxamdulillah rabbil caalamiin ilantii markaan ka soo iibsaday waxaan ku iiga iibi waxay ku tiri walaal waa qaaliyo waa $70 waa goojada aad arkaysaan wixii tayo laba horta qaali ah lacagtana waxa la inoogu tala galay inaynu ku takrifalno baahiyaheena ku daboolano asaasiga ah wax far badan bay inaga bacdaa lacag simple ayay inaga baxa habeen baynu ku casho tagnaa waa wax jira waxaan ku yiri 2 xabba ii dhiib 2 xabbaan ka soo qaatay habeenkii markaan cabay 10 dhibcood lugtii xanuunaysa waa taa midigta kama tukan jirin 7 sano alxamdulillah rabbil caalamiin kursi baan ku tukan jiray waxay noqotay alxamdulillah inuu ilaahay iigu gargaaro habeenkii koowaadba waxaan helay hurdo inantaydii habeen iyo maalin markaynu caafimaad qabno hurdadu waa wax inagu kooban habeenkii markaynu xanuunsanaynana waa wax aad sida runtii habeenkii u farbadan yahay ninkii xanuunsaday baa garanaya iyo qofka qof xanuunsaya haya alxamdulillah xaajigina wiila cabay isna dhinacaas buu dhacay ana dhinacaas ma dhaco salaadii subax ma nidhi maxaa halkeen galay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan kaga tagay waxa waaye hadaysan walaashii ka way ka dhawaajisay Soomaali waxay tiraahdaa talada waa marad garan weydo iyo marad gaari weydo horta reerkiisa waxaan ugu hambalyeeyaa in allaale inta Soomaali meel kasta dunida ay يعني wadamada Soomaalida oo dhan ay degaan waxa reer Hargeysa waxa waaye dadkii ugu horeeyay 2 sano ka hor markii insaan oo kale gabdho walaalaheena ay ganacsi keeneen dadkii ugu horeeyay oo qaatay adinka xasalid u noqoteen maanta walaalaha Soomaaliyeed oo meel kasta joogo inay gaarto marka taasi si gaar ah hambalyeeyaa ma sha Allah tabarakallah saddexdii qof
rooda raxma iyo ikraan baan doonaya inay soo fadhiistaan si wixii su'aala aad u weydiisaan khadar waxaa ka codsanaya mikrofoonka kale inuu isticmaalo oo qofkii su'aal qaba uu siiyo su'aalahan waxaan rajaynayaa insha allah inaad si yaro kooban aad wixii su'aal aad fahmi weydeen ama idinkaga jiro aad u weydiisaan hadhow toole fadlan wixii la kala iibsanaya ama wixii la kala qaato halkan noo soo fadhiista waqtiga cidhiidhiya halkan fadlan soo fadhiista waqtiga inagu cidhiidhiya rooda raxma iyo ikraan fadlan halkan soo fadhiistaan waqtiga ayaa aad nagu cidhiidhiya intiina halkan fadhidaan waxaan rajaynayaa wixii su'aala ee aad qabtaan ee intii laga hadlayay inaad nala wadaagtaan si ay idinka jaahil saaraan oo idinku faahfaahiyaan mikrofoonka kale khadar ayaa idin dhiibi doona cid su'aal qabta horta ma idinku jirtaa safkan wax su'aala waa sax inantan marada cad iyo marada cas xiran koonaha soo fadhida magaceeda aanan garanayn fadlan u soo dhiib الله أدب ما هتشنتي سلاح الفد ما قصوا عالسنتين سؤال شيء بكويدين يا وحويان هذا سلا كمبني جا قصوا بيربل بروسيس كان مريا سلا قصوا بيركرا انت يقول قامان سنا قصوا بيرم حلا يقول حلا لا يجيب هي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مقعي واسهر إسماعيل waxaan weydiinayaa walaalaad mahadsantihiin waa maxay farqiga u dhaxeeya labada shaambo ka dumarka iyo ka ragga noo sheegteen mahadsantihiin kambanigan markaan ku soo biirayo ugu yaraan lacagta aan ugu yarahay aan ka soo gali karaa waa intee waa qodobka koobaad qodobka labaad aan weydiinaya waxa weeyeen markay kambanigu alaabta aniga ii keeno aan alaabtii iibsadon alaabtii iibiyo lacagtii aniga ii soo xarootay faa'iidada ay ahayd ma kambanigii baan dib ugu celinayaa mise anaa la hooban haysanaya waa hagaag saddexdaas su'aalood baad insha Allah aad uga jawaabi doontaan su'aasha koowaad waxay ahayd shuruudaha kambaniga lagu soo gelayo oo inantaasi ayna weydiisay su'aasha labaadna waxay ahayd kala duwanaanshaha ta saddexaadna waxay ahayd lacagta ugu yar ama xaddiga dhaqaale ugu yar aan ku soo gali karayo iyo su'aasha ugu dambaysa oo ahaa productiga uu kambanigu soo saaro هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء داس سؤاشي ويديسي أها سيدي كمبني جان لوجو صابير كرا سيدا رنتيا كمبني جان سيدا لوجو صابير كرا وحاد أصيب على سيدا رنتيا ما دام ما أنت أدون كو تكنولوجيا دوحول بينو فدوديين أديكو هالكاتشوغا شروط دا لجاجة بهاي واحد تكو أي ديكار كينا بريان بانك أنا واحد كفرنا يسا أكون إن شاء الله تعالى أكون مركز كفرتا أكون كاو حلقو فراشان $10 واحد بدن معها لعقت آد كسو جليسو صدح درجة ويان درجة دا أقوه سيسا أولا بقول يشان $7 كنديان يتدحي أو لح بقول يكوب $40 أو كنديان مر والبويس عليان كنديان كا $1 كو تصدحات أو $1,500 إمي كلام مركي العجو يسبدلين نقطي كن 857 كنديان سدرون تيا صدح درجة أي هرت اللوجو صابيرة سببتها وحين سد اللوجو صابيرة إنه وحن كل واحد لوجو حدا ياون أي دكار كنا $8 بريان بانكا أو أكون كفرته سداس مركز أنت صور لما يستوه هرجسة قدية ده one day بيقاطع أما 2 days كدب ولا قدوان قلنا يعني قاضي تمي أيها قدوان قلنا إسله هبين كاس إن كستوي إنه هبين يا مالك على النهاي كنديان هلكو إنه قبل كو إنه قد عيه واجو بريا مركا إن شاء الله تعالى ووحكو قاضنا إياه 3 days وقبضنان هديك لو 2 days إن شاء الله تعالى ساس أنا لو صوبيرا أدبان استبلوت هاي سؤاشي لبعض هاي different كأودحية لبعض الشامبو ولا شيء رضايا سيدنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد وسؤال آد قيمة بدرنا هانتي سؤالات ويديسين آد بدك مهتنتين وحكى لي أنت نتبع عنه لقي سنين سؤال ولا شيء ويديسه هاد فرق الشامبو ودحية وحي وحويان وحكى لماها شامبو رجع لو قلت هلا قال الشامبو أنا ضمرك ميت كستا مكونات قارب وكوبين هاي شامبو غرقو ورنهانتي مكونات كوبين ولا شيء وحشيخ ترح مثلا يابان وحا كوكا أو main ingredient كيسو يهي جيد كاني spruce tree كوتشري جوتشة طبيعية fountain of life كان كلنا وكوتشرا وحا كوتشرا أمينو acids با كوتشرا
waxa ku jira vitamins baa ku jira borotiina ku jira tima u fiican oo wanaajinaya labadaba farqiga kaliya u dhaxeeya waxa weeyaan makawinaad dheeraada ayaa lagu daray shaambada dumarka oo ah olive vera bahasha loo yaqaan ama badacarta iyo vitaminka loo yaqaan biotin oo hadda baadhood google ka geliso biotinka dumarka oo dhan baa isticmaala si ay timaha iyo cidiyaha ugu bixiyo waa vitamin gaara oo gaar loo isticmaalo supplement gaara maxaa loogu daray dumarku timahoodu inay baxaan bay jecel yihiin gabdhihi yar isku mid ma rag halka ka jarayaan dumarku way bixiyaan marka biotinki inuu dumarkii timihii u bixiyo ayaa loogu talagalay oo loogu daray dacartii labadaba inta kale laakiin way ka sameeyeen makawinaadka kale ee ku jira dabiiciga ah waxa kale oo ka maqan wixii chemical ahaa ama fillers loo oran jiray shaambooyadeenan ee paraben iyo sulfate-ka ahayd ee timaha jajabka iyo go'itaanka u keenayay insha Allah taala su'aasha ugu dambaysa moogina walaasha raxmi ku soo gaadhay ahayd su'aasha mid wad ka jawaabta qiimaha lagu soo galo laakiin faa'iidada company-gu waxa aan ka sameeyo ma aniga ayaa qaadanaya mise company-ga qaadanaya walaasha raxma ayaan jecelahay in su'aashaas ka jawaabto bismillaah maya markasta walaalo faa'iidada aad ka hesho company-ga amba ha ahaato lacagtan adigu aad markaad iibiso aad dul saaranayso sida goojadoo kale walaasheen rood inoo sharaxday marka aad konton siiso adiga laga siiyo 20 si dul saarto adaa leh faa'iidada ta kale ee online-ka ee hadii uu qof ka iibsado uu online-ka ka iibsado commission baa jira adiga ku soo dhacaya taana adiga leh markasta wixii dhaqaale ee ka samayso company-ga marka laga reebo year fee-ga iyo inta bishii la bixinayo oo bil kasta lacag yar oo gaar oo cayiman baa la bixiyaa si uu kuugu xafido pointyadaada aadna uga sii qayb noqoto company-ga marka labada marka laga reebo wixii kale ku soo gala adiga iska leh salaamu calaykum alban salaam ya ma sha Allah hablaha sublimasha qurux badan inoo soo bandhigeen insha Allah waxay noqon doonaa kuwa ka faa'iideysta su'aasha qaba waxa weeyaan marka aan processkii aan galo ee la diiwaan geliyo lacagta markaas waxa weeyaan 205 soo maaha boortiga alaabta marka la soo diraya ma lacagtaas bay ku xirtay mise lacag kala bixinaya oo alaabta la igu soo diraya walaasheen Sahra Cabdiraxmaan su'aasha ayna weydiisay ee alaabta ma lacagta hore un baa lagugu keenaya mise lacag kala bixinaysa may lacagtan waa lacagta company-ga aad wax kaga iibsatay laakiin tal delivery-gu waa ku gaar laba shirkadood ama laba boosood oo midna aramagas la yiraahdo midna DHL waynu naqaana labadaas ayaa keena mid walbana markay KG-geeda ku sheegaan qiimaheeda aad iska bixin doona biidnillaahi tacaala ma ogtahay daawadayaal in magaalada Hargeysa lagu keenay sharoowada Fountain of Life iyo kiriimyo dabiici ah isla markaana original oo aan lahayn wax kiimikaal ah shaambooyo iyo dawooyinkii lagu cadeynayay dhamaan alaabtan waxa ku sameeyay company-ga weyn ee Ambulance Global oo fadhigiisu yahay dalka Canada hadaba kala xiriir Iraan Axmed Mataan oo Hargeysa kugu keentay alaabtan ama wax nambarada shaashada kaaga muuqda